bulshada isku keenayo isaga kasbaday kalsoonida dadka kulmiyo warida iyadoo xusbiga muxaafidka ee kulmiyo ololihiisu ku muujinayay taageerada uu ku dhexleeyahay bulshada Soomaaliland ayaa waxaa saaka kumanaan ka mid ah taageerayaasha xusbiga kulmiyo ee magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceergaabo isugu soo baxeen fagaaraha beerta xorriyadda ee magaalada Ceergaabo goor intii aan soo gaarin barkulankooda waxaa taageerayaasha xusbiga kulmiyo socod iyo gaadiid ku soo mareen shaariciyada waaweyn ee magaalada Ceergaabo iyagoo ku dhawaaqaya erayo ay ku turjumayaan dareenkooda taageero ee hayaan xusbigaasi waxaana fagaaraha beerta xorriyadda ugu horreyn baa kala hadlay gudoomiyaha xusbiga kulmiyo ee gobolka Sanaag ka tirsan madax dhaqameedka gobolka Sanaag siyaasiyiin mas'uuliyiin kale kuwaas oo taageerayaasha ku booriyay inay codkooda ku hubsadaan kulmiye dadkan halkan isugu yimi ee taageerayaasha xisbiga kulmiyaha maaha dad la soo raray maalintii dhaweyd ee xisbiga wadani soo bannaan baxay dadka meesha isugu yimi waa dad la soo raray oo tuulooyinka iyo miyada iyo degmooyinka kale laga soo raray weeye xildhibaan golaha dagaankii wuxuu yidhi kulmiye waddaduu ku faanaa waddadana xirsi baa sameeyey buu yidhi waa nasiib darro taageerayaal hamoodina inaynu la simannahay xisbiyada kale hamoodina arrintuna way iska caddaan doontaa insha allahu tacaala 13 Noofambar bay caddaan doontaa idiin wadnaa waxaanu rajaynaynaa haddaanu nahay ogaashiga dhaqanka inaannu la shaqayno waxaanu idiin wadnaa xusbi guuna oo waxii uu qabtay horeyna la garanayo wax dambana qaban doona halka waxaa la yidhi kulmiyo baybay baa laga lahaa daraan anigu waxaan leeyahay wadaniyo baybay innaga lafteenna waa laynala xisaabtamaya maanta ayaa qof waliba yahay inuu dadkiisa iyo dalkiisa iyo wiilkiisa u taliyo codkaynu caalamkeena gaarsiiyo oo aynu doorano muuse bixiso iskuma aynu raacay xuduudiinnii baa muujiseen waa muuqataan si weyn baa u muuqateen wixiinnu waa mabdac axmed maxamed maxamuud aadan dalka abaal buu ku leeyahay waxtar buu u qabtay dardaarankiisibaanu qaadanaynaa buushuu inagula dardaarmay waddani wuxuu u yaqaanaa waddaniyiin hal jees innaguna waxaannu kaga duwannahay bulshada Somaliland sayna ilaa laasqoray inay mid yihiin maaha taariikhdu inaynu dafirro halka shalay waxa ka qudbadeynayay daraato xirsi waxa adeeru ah 3 nin gabaygu ku soo baxay abaalgadka waa adeeradii ruma ee loogu gabiyay abaal darrada fiilaanya halkuu geeyay waa la ogaa waa xusbi ay ku duhoobeen dhammaan dadka ku nool daraf ilaa daraf bartamaha Somaliland waa xusbi ay ka dhex muuqdaan ragleeyihiin waddada annagaa samaynay dawladda annagaa dhisnay wararta nin la dhalay wax ma dhalay waxaan kula ballamayaa siyaasadda waynu garanaynaa guusha waynu haynaa halkiinaa ka dhaqaaqina cidaa doontaan mooyaane kulmiye ha guulaysto codkeennu waa kulmiye hal dhashay oo hore loo maalay oo caanaheeda la dhadhamiyey oo caanaheedu macaan yihiin oo maqasha korisay oo carruurta korisay iyo midaan cunanba kaasoo dooran mayno taa aynu caanaheeda dhadhaminay mustaqbalkeedii baanu kaa rabnaa ma doonayno inaanu hargeysa uga doonno waxbarasho taasaanu mustaqbalkeedii kaa rabnaa inoo farteenna iyo 13 Noofambar doonaya taageerayaashiisu inay u diyaargaroobaan oo kaliya inay codka dhiibaan wuxuu doonayaa qof kasta oo taageeraha inuu noqdo campaigner afhayeenka guddida waddada ma laha waddada meesha aanu ka dhaqaajinnay oo markii xirsi laga eriyay ay ka dhaqaaqday gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan Saleebaan Caawil Cali Bukhari iyo gudoomiyaha guddida kaambeynka ee gobolka Sanaag ee xisbiga kulmiye xildhibaan Ibrahim Caraale Ruush iyo waliba sidoo kale barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay mid waxaan leeyahay xirsi shalay halkaa markuu ka hadlayay dadku aad bay uga naxeen waa laga xumaaday waxa looga xumaaday hal sabab waxa weeye wuxuu ku faanay wixii uu qabtay madaxweynihii soo jireenka ahaa ee Axmed Siilaanyo waa u guuleeya ninka markaa ku cusub saaxadana wadnaha markiiba soo goobo isxiijiya markaas la baasgareeya waxaan leeyahay xisbiyada socod baradka ee ugu horeeya xisbiga wadani waa iska soo barbaari doontaan oo waa qaangaari doontaan insha Allah tacaala waxba ha muraara dilaacin oo waxba ha diingaraarine hadday maanta idin xaadatay oo aragtaan maanta Ceergaabo dhaqaaqday suuqii oo dhan oo buuxsamay hadda aragteen
إن شاء الله تعالى وكسو كمان دونتان حزبي كلمية هبوا ليستو حزبي كلمية هبوا ليستو عليها هاي ما أنت داد بس شرق بدي بدي بس شرق بدي سوسنا ما dadka halkan ka baanayay ama gobolada dalka ka baanayay waa dadkii dawladda yani maanta aynu haysano faraasida ugu sareeya ku fadhiyay ee cidlada u carab barkhad maxamuud geedi bulsha TV magaalada Ceergaabo